ninkii ciidana oo sharcigaan ilaalin oo nidaamkaan ilaalin oo aan ilaalin xuquuqda shacabka maxaan ku raahdaa loo sameeyey aan ilaalin sharcigu hortagi wuxuu shaqaystuuna leeyahay meel kasta uu galo qofkaasi waa soo qabanaynaa oo ilaah hortiisa ah allah u naxariisto labadii wiil maanta naga dhintay oo gacanteenni ku baxay oo ahayd inaan difaacno oo aan ilaalin noloshooda ilaaha nolol ilaaliyeen waxaan u tacsiyeynayaa eheladoodii iyo caa'iladoodii iyo faamilkoodii yaan u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana jannadiisii iyo naxariistiisii ilaahay ha siiyo dowlad dimuqraadiyad baan nahay waxaan nahay dadka inaan u hoggaamino nabad iyo horumar inaan u hoggaamino oo aad biri soo doorataan laakiin mudaharaad aan sharciyeysnayn mudaharaad lagu burburinayo sharafka iyo sumcadda Soomaaliyeed mudaharaad ganacsatada looga burburinayo hantidooda ma yeelano dhowr qof oo qaswadayaal ah ma aha inay magac xumo siiyaan askarta ma aha inay magac xumo siiyaan dowladnimada Soomaaliyeed oo intay soo baxaan oo jidad ka qaadaan oo taayaro gubaan qofkii wax tabanaya ma aha cadaaladda iyo sharciga gacanta ku qaata ma aha inuu hantida shacabka Soomaaliyeed burburiyo ma aha inuu nabadgeliyo xumo iyo nidaam xumo u horseeda ma aha in cadawga aan la dagaalayno oo argagixisada ah inuu gacan siiyo ma aha ha u dulqaadanina hana yeelina in la soo dhexdunto cadawga waa la dagaalaynaa bannaanka ciidamada qalabka sida ay kula dagaalamayaan goobo iyo aagaan ka qabsanay waana siyeeriyanaa waana ku daba jirnaa ma aha intay la soo dhawamaraan oo dadka isku dhaxqariyaan oo ay ka faa'iideystaan arrintan oo kale ma yeelano dowladnimada dib loo dhigo ma yeelano dowladnimada dib loo celiyo waxaan u soo marnay dhibaato badan waxaan u soo marnay maxaan ku raahdaa dhibaatooyin aad far badan baan u soo marnay hadda aan cagta saarnay wadadii inay naga leexiyaan ma yeelaysaan ma ogolaanaysaan